يجيك أنا كنت تيار هذيك كانت وأسودي كران اللي ندح صعوبات إنه ورمحات أنت ورقاباتي ورسوة أركان هذا امتنان هذا أقرب دولة إيمانين أنك وابر لي يا بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلدويني ومقالة دباتيسن ومقالو بيوه اي قريين arrinka ugu adag ee magaalada ka jira ayaa ahi in dadkii ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle aysan weli helin wax gargaar ah. galbeed annaga dawladda maxaynu u lowdi jimciyadda maxaynu u lowdi meelan dadka ka mid ah ee kiisa la baar ayaa joognaa waa sidee dawladda annaga maxaynu u lowdi oo jimciyadda maxaynu u lowdi hada u baadreedii cashuur baan qaadaynaa qaydaha sababta annaga maxaynu u lowdi waa sidee waxaana aad u liidata nolosha dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga Shabeelle ileen waxay ku nool yihiin nolol aad u adag. waxaa jiro gobollo fara badan ay ka socdaan ololaha lagu gargaariyo dadkii ay saameeyeen fatahaadda webiga Shabeelle. ilaahay baa mahad leh ilaahay baan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiyeynaynaa intii walaalaheena ahaa ee fatahaadda ku dhimatay waxaan diyaar u nahay inaan u gurmano inta nool ee gurmadka inoo ka baahan waxaan halkaan isugu nimid anagoo fulinayna baaqi madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay ugu baaqay bulshada iyo dowladda Puntland dadkeeduba inay u kacaan sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka reer Beledweyne waxaan halkaan fariin uga diraynaa magaalo walba gobol walba iyo degmo walba gaar ahaan Puntland xuduudaheeda oo dhan iyo meel walba dhalinyarada samafalayaasha dhalinyarada isxaaqamayaasha qof walba inuu u istaago badbaadinta dadkeena walaalaheena ee ku dhibaataysan Beledweyne waxaan fariin u diraynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan Soomaaliya meel walba ay joogo maanta inay u kacaan walaalaheena Beledweyne sidii loo badbaadin lahaa Beledweyne kiiskii ugu dambeeyay baan ka tacsiinaynaa dad iyagu intay rabeen inay baxsadaan oo badda ka baxsadaan geeda fuula isla markaana geedku intuu la soo dhacay biyuhu ay la tageen waxaan halkan fariin ugu dirayaa ummadda reer Puntland ummadda Soomaaliyeed qof kastoo damiir leh Soomaalidu maanta dhibta taagan tahay waa maalinta ay soo baxaan maanta waa maalinteennii dadka reer Beledweyne aynu caawino dadka naxariista badan ee reer Puntland ee ka soo qayb qaatay dhibaatooyinkii dhacay oo dhan oo ka mid ahaa qaraxii Soobe oo ka mid ahaa fatahaadii sidan oo kale uga dhacday Beledweyne oo ka mid ahaa Puntland wixii ka dhacay oo ahaa abaarihii dadkii ka qayb qaatay intoodii badnaa halkan taagan yihiin waxaan leeyahay fariintan diray waxay tahay maanta reer Beledweyne waxay u baahan yihiin hiil waxay u baahan yihiin hiil Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hiil garab istaag iyo caawinaad hadal uma baahna qof kasto Soomaaliyeed qof kasto reer Puntland waxaan leeyahay tuulo ilaa gobol ilaa degmo waxaan leeyahay la soo baxo ha laga qayb qaato dadka reer Beledweyne waxay marayaan biyihii hooyooyinkaas ka mid ah aabayaal waxa ka mid ah iyo badbaado soo doonto si wabigii daaf marka wabigii uu la tagay dad waxa jira iyagu wax caawinaya wabigii la tagay waxaan rajaynaynaa inaan baaqeena laga soo wada jawaabo buus waxay noqon doontaa meesha aynu ku kulmi doono qof kasta waxaan ka codsanayaa numbarka halka ku yaala inuu soo waco nagala qayb qaato ololahan waa olole aad u weyn ma aha olole 10 qof iyo 20 qof toona ay ka bixi karaan in dadka reer Beledweyne mar labaad mar koowaad iyo mar saddexaad hiil loo muujiyo allow adiga ayaa u maqan ummadda